أصحابي kusoo dhawaada qisadatan ninkan wuxuu ahaan jiray chef caalamiya oo madaximta adduunka ugu qaalisan cuntada ka soo kariyay. Ninkan uu yimi wiilkiisa oo gaajaysan buu wuxuu u weydiiyay inuu sandwich oo ka iibsado laakiin lacagtu kuma filna. Wuxuu yiri iga raali noqo ma awoodi karo mana haysto lacagtaas. Wiilku wuxuu yiri waa gaajaysnahay odaygiina wuxuu ku yiri markaa shaqo bilaabo dib uma gaajoon doonto laakiin maanta iska dulqaado. ninkii runtii meesha haystay sandwichyada baa ku yiri hadiyad ahaan baan u siinayaa iska dhaaf dhib malaana dad lacag haysan. ninkiina uu jawaab wuxuu ku yiri maya iska daaysi ban meel baa haysataa. ninkii wuxuu ku yiri maya wiilka waa siinaya ku gaajaysan. ninkii wuxuu ku yiri aad baan kaaga mahadcelinayaa waana ku abaalgudi doonaa maalin aan maanta ahayn. runtii duruufta qofka laguma qiimeeyo iyo labiska haddaba sida ujeedaan sandwichka waa wiilkii yaraa la siiyey. kadibna ninkii wuxuu ku yiri niyahow ilmihii markii la siiyey buu runtii u mahadceliyay mar labaad aad baan kaaga mahadcelinayaa buu ku yiri. maxaa la ballansan uu yiri maanta restaurant caalamiya markaan restaurantka ka soo shaqeeyo lacagta waa ku siin doonaa. waxaa isku dhimay male laakiin restaurant la isla yaqaano caalamiya weyn. marka wiilka walaal wuxuu ku yiri absi fariiso anigana waxaan aadayaa ballantii oo u socday restaurantka kale. runtii restaurantka oo la ballansay restaurantka ugu qaalisan magaalada weyn waa kan isagoo siifigiisa wata wuxuu soo galay restaurantkii. ninkii receptionka fadhiyay la hadlay wuxuu ku yiri ninkii baa isla markaa ku yiri waa maxay anagu ma qaabilnayo dadka nolosha ka dhacay. markuu sawirkiisa iyo labiskiisa runtii markuu arkay kadibna wuxuu ku yiri war waxaan la ballansanahay chefka dhan ee meesha haysta. haye isugu baa lagu yiri chefkii waranta u tagay wuxuu ku yiri nin baa ku jooga oo kula ballansan. aad buu farxay dadkii uu ka soo tagay wuuna u yimi mase markuu arko bakaya war maad u sheegay ku yiri dadka darbijiifyada ay meesha soo gali karin. markaas waa u sheegay laakiin wuxuu yiri ballan baan la leeyahay war meesha tan wuxuu yiri ma soo galaan dadka noocaaga kale nooca kalena anaga ballanaga ma qabsadaan. wuxuu yiri qofkii aad la ballansanayd aad sugaysay waa aniga waxaana ka soo shaqayn jiray yiri restaurantiga kuwa kan ka qaalisan oo ka waaweyn laakiin ninkaan sida jirta kama yeelin. CV-gayga waad fiirin kartaa buu yiri bal akhri CV-gayga oo waxaad ogaataa oo fiirisaa restaurantiyada aan ka soo shaqayn jiray ee caalamiga sidee ahaayeen. intuu saa u fiiriyay ninkii buu kibir warbeen iyo tuugaad la wareegaysaa buu yiri warqadaha nooca kan oo koobigaana waa naqaanaa dadka adigoo kala ah beenaalayaasha ee darbijiifyada sidaad u jeedaan wuxuu ka jeexjeexi doonaa isaga CV-giisa buu ka jeexjeexay. weligaa ee allaha qofa ku qiimeynin duruufta haysata. ninkan riixaaskiisii baa dhintay waana sababuhu uga soo tegay madacamkii weynaa ee uu ka shaqayn jiray. wuxuu ku yiri meesha iga bax dadkaan aad u jeedo meesha in ka badan 2 asbuuc balana bay sugayeen dadkaan in meesha cuntada ka cunaan adna waa iska soo galaysaa meesha iga bax buu yiri. runtii ninkii isagoo aad u niyad jabsan buu soo laabtay. wiilkii baa ku soo booday oo faraxsan ka saaba shaqo ma soo heshay. ma yiri ninkii waa soo eriyay si xun buuna ila soo dhaqmay laakiin waa la khayrayaa. yiri maadan u sheegin in aadna khabiira tahay siyaan haa laakiin markay arkeen aniga muuqaalkayga muqaabaladii iyo runtii sidii bay arrinta ku dhamaatay uuna isoo eriyay. aad baan uga xumoo yiri dhib ma loo yiri waa la khayrayaa shaqana waan heli doonaa xaaladdan aan ku jiro waan ka bixi doonaa. wiilkana wuxuu yiri ballan baan ku qaaday insha Allah inaan marxalad ka duwan aan geli doono. ninkii baa u yeeray oo wuxuu ku yiri kaalay waxaan ku weydiinayaa ka waran haddii meesha tayarta ay la shaqayso. markaasuu yiri meeshaan meel yar weeye adigaba dhibaato kugu tahay. markaasuu yiri ninkii inaadu naxariis badan oo dhibaato ma loo yiri adiga mushahar kuma siinayo lacagna kuma siinayo laakiin wixii soo baxa 20% baan kaa siinaya. ma hubtaa buu yiri warkaas waa ku hubaa buu yiri way heshiiyeen meeshii baan sida aad u jeedaan lagu wareejinayaa sababtoo ah ninkan waa nin ku kar caalamiya oo waliba la wada yaqaano. sandwichkii buu isaga siiyey ilaa isaguna maanta oo dhan waxba uusan soo cunin. runtii aad buu la yaabay wuxuu yiri aad baa sandwichka ugu macaan yahay
weligaa ayaa lahaa qof duruufta runtii ha ku qiimeynin bal ninkan dhibaatada iyo xaaladda uu marayo fiiriya iyo waxa uu ku dambayn doono waa qiso cajiiba runtii ninkii baa intuu halkaa ka arkay oo lahaan jiray madcamkii caalamiga ah baa ku yidhi warkaale war dadka darbijifyada miyaa meeshan ugu yeertaa hor meesha ha iska xirin buu yidhi awalba meel yar baad haysatee waxaan ku leeyahay meeshan ha iska xirin waysan meesha kaa xirin uuna ka tegay kibir ee jees buu weli ninka u hadlaya ninkan miskiinka ah waa ninkan aad u jeedaan iska duruufaysan kana shaqayn doona wuxuu yidhi markii meheradu kaa xiranto shaqaalaha kuu shaqeeya aniga kaarkaygaa soo siisay u soo shaqo doontaan xagga uga soo shaqo taga wuuna ka tegay sidaa u jeedaan labadaa ninkaanu nin aad waxa moodaa ugu kalsoon ninka inuu yahay koofidiina uu ku wareejiyey isla sidoo kalena maradii dhexda lagu xiran jiray sidoo kale uu ku wareejiyey maanta wixii ka dambeeyana waxaa meesha tan cuntada ka karin doona ninkan kalena ee saaxiibkiis ahna dushuu kala socon doonaa haddaba ninkanu maadaama uu yahay nin aad khibrad dheer ugu leh cunto kariska weliba gaar ahaan sandawijyada iyo waxyaalaha iska yaryar bal aynu ogaano siduu meesha u maamulo wax yar ka bacdi cuntadii horta uu soo sameeyey oo tusiyey yarkiisii uu ku bilaabay wiilkiisa runtii cuntada macaanka badan una yaqaana gacanta aabihiisa caadi maahan buu ku yidhi aabe waana guulaysan doonaa ninkii sida aad u jeedaan meeshii hal cuntaa ku qornaan jirtay laakiin cuntooyin fara badan baa lagu soo qoro lagu safay kabacdi kastamkii aad bay usoo farabateen isla sidoo kale ninkan informationkiisii meel kastuu gaaray ninkii kale aad buu u faraxsan yahay runtii sidaad aragtaan asxaabay saf baa lagu jiraa waxaa safka loogu jiraana waa ninkan cuntadiisa waayo social mediahii tviyadii idaacadihii meel walba wax la gaarsiiyey xataa waa sidaad ujeedaan waata saxaafadii baa timi waxa meel walba gaartay ninkaanu in laga furay meesha tan madcam aad u cunto macaan sidaad aragtaan social media meel walbana waa ay gaadhay ninkan xayisiintiisii haddaba maxaa dhici doona waqtigu cajiibsanaa ninkii baa soo baxay oo yaabay safkan dheeraatay ee meesha ka socda war wuxuu yidhi maxaa meesha loo wada taagan yahay asxaabay qaybta dambe aan soo dhammaysano baartituuga waxaad kala socotaa youtube channelka kor saaran ama baartituu intaan soo dejinayo sug insha allah ninkii runtii sidaad u jeedaan ninkii aad buu u faraxsan yahay cuntadii buu qaybinaya ninkii baa u yimi haa hebel qosol iyo sheeko la soo galay ii waran maxaa haysaa ka waran oo dadkan oo dhan adiga meesha ku joogaan warniga waagi waan kugu khaldamay aad iyo aad baan uga xumahay runtii mana u malaynay inaad tahay qof sidaan yani heerkan gaari doona oo aqoontaan u leh meesha tan laakiin waxaan maanta jeclaan lahaa inaad xaggayga aad kusoo wareegto hadday suuragal tahay bal cuntada ma idhadhasiin kartaa aan arkay oon dhadhamiya inaan dhadhamiyaan doonayaa laakiin sida dhulka loola jaro fiiri iyo waxaa ku dhaca asxaabi adduunyadu saad moodayso ma aha weligaana qof duruuf ha ku qiimeynin haddaad rabtiro cuntada inaad dhadhamiso waa inaad safka la soo bilowdaa baa laleeyahay safka meesha u dambaysa waa inaad ka gashaa ilaa hadda ninka wuu murmayaa wuu doodayaa haddaad doonayso yidhi safka gadaal kara war ma anigoo hebela baa safka gadaal ka aaday stupid baa tuuleeya adiga iyo waxaan meesha haysta oo dhanba runtii aad buu uga carooday meeshii buuna ka tegey waadna ibaran doontaa buu yidhi ninkii saaxiibkiisa ahay aad u faraxsan baa u yimi ka waran buu yidhi maanta marxaladdii iyo xaaladdii meesha ay marayso runtii wuxuu yidhi saaxiibo waxaan kugu wareejinayaa lacagatan oo ah lacagta ugu horreysa oo aan qabtay ninkii lacagtiiba fiiriyey hay ninkan isagaa maamula sida kale madcamka qarashkiisa nin wuxuu yidhi qabso lacagatan markaan qiimeeyey yidhi lacagtaa meesha ku jirtaa markii aan xisaabiyey anugu lacagtaydii waan haystaa lacagtaa meesha ku jirtaana waa 20% intii aad adigu xaqu lahayd haddaba asxaabay ninkii shalay duruufaysnaa ee shaqada laga soo eryaayey maanta sida aad u jeedaan guushaas ayuu gaaray lacagtii ugu horreysay oo 120 oo weliba aad aragteen kastamka intaas faraha badan ee u soo galeen ku guulaystay
qisadan waxaan ka faa'iidaysanaynaa sidaad u jeedaan weligaa qof ha ku qiimaynin duruufta laakiin shakhsiyaddiisa ku qiimay waqti iyo jaanisna sii asxaabiga dhiirigelin waxaa noo ah subscribe-ta iyo sidoo kale like-tina waa mahadsantihiin